haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirsan. waxay ahayd 2018 bishii 8aad maalintaasina ma aha maalin weligii ee ilaawi doono. 3 maalin kadib waxay ahayd dhalashadeyda. gurigana aniga iyo hooyadii kaliya ayaa joognay. banaankana waxaa ka daayay baraf roob ah qabow zaa'idna ayay ahayd. xoogaa kadib waxaa ii imaaday hooyadii waxayna igu tiri banaanka ii wad, waxaan rabaa in aan suuqa wax kasoo iibsado sababtoo ah banaanka aad ayay qabow u ahayd, kaligeedna baabuur kuma kaxayn karin. waxaan go'aansaday inaan hooyadii soo raaco kadibna aan baabuurka ku kaxeeyo. inkastoo jawiga aad u qabowaa haddana ahayd 6 habeenimo, laakiin waan ku qasbanaa in aan hooyadii wado. si degdeg ayaan ku soo baxnay waxaana keenay suuqa si ay wax uga iibsato. baabuurka ayaa baakin geliyey. hooyadiina waxaan ku dhahay aniga baabuurka dhexdiisa ayaa kugu sugayaa ee adeega iyo waxaa rabto soo gado. run ahaantii leen dheer ayaa lagu jiray. si degdegna hooyadii kuma soo bixin, xoogaa meesha ayay ku soo daahday. aniga keligay ayaana baabuurka ku jiray. jawigana aad ayuu qabow u ahaa. waxyar kadib waxaan shitay hiitarka baabuurka anigoo isku kuleenayo qabowga daran si aan uga badbaado. moobilkayga ayaan isku boojinay. waxyar kadib waxaan arkay baabuur hoosta iga soo galay. baabuurkaasna wuxuu ahaa baabuur gaduudan. sidaa miyaaradda ka arkayna 2 qof ayaa saarneed. agteeda ayuuna kusoo baakimay. run ahaantii wuxuu awooday in uu geesaha kale ku baakinto, laakiin si talagal ah ayuu agteeda ugu soo baakimay. baabuurkana 2 qof ku jirtay, qofna muusan soo degin. labadooda meesha ayay iskaga jireen. hooyadii markay soo baxday baabuurka miyaaradii ayaa hoos loo dhigay. waxaan arkay nin aad u xoogan oo u eg sida bahalkii oo kale. anigoo ka baqay hooyadii markay soo gashay. hooyadii waxaan u sheegay in dadkan 30 daqiiqo ku dhowaad meesha ay joogaan waxna ay weli iibsan. laakiin hooyadii waxay u dhahday suuqu waa cariiri, meel istaaga ma lahan. si kastoo ay tahay aniga ninkan waa ka shakisnaa. run ahaantii waan iska ilaalinayay. hooyadii ayaa waxay dhahday walwalka iska dhaaf, haddaba waan bixinaa ee hadda xaafadda noo wad. kadib gaariga inaan gadaal u wada ayaa isku dayay, laakiin ninkan si ku talagal ah ayuu albaabka u soo furay. albaabkiisa ayaana ku dhacay. dib wuxuu dhahay maxaa baabuurkayga u garaafaysa waryaa. anigoo og in uu asiga qaladka leeyahay ayaa haddana dusha aniga qaladkiis ka saaray, sababtoo ah ninkan aad ayuu igaga xoog weynaa. kadib hooyadii ayaa waxay igu dhahday ninkan iska raaligeli, meeshan naga kaxay. ninkii daaqadda baabuurka ayuu soo istaagay si aan miyaaradda hoos ugu dhigo, laakiin aniga waxaa ahaa mid asiga ka caqli badan. xoogaa yar ayaa miyaaradda hoos u dhigay. waxaana dhahay saaxiib iga raali noqo. run ahaantii ninka indhihiisa markaad fiiriyey isla markiiba waxaan dareemay ninka inuu shar soo wado. wuxuuna igu yidhi aniga kuma maqlo, miyaaradda si fiican hoos ugu dhig si aan kuu maqlo. aniga waan calooday. waxaana ku dhahay wax aan ku raaligelinayay ma lahan ee maxaad iga qaadan kartaa. isla markii wejigiis wuu isbedelay, aad ayuuna igu xanaaqay. wuxuuna yidhi waryaa aniga ma sidaas igu leedahay, daaqadda iga fururyaa ayuu igu yidhi. laakiin aniga waa ka diiday sababtoo ah marka hore si kas ayuu i dhegeysanayay. kadib baabuurkii ayuu fiir ku dhuftay. miyaaraddiina tirir ayaa galay. miyaaraddii waxay ku dhowaatay inay i jabto. hooyadii ayaa waxay dhahday meesha naga kaxay, ninkan iskama celin kartide. laakiin ninkii sidaas kuma quusan. fiir ayuu ku waday miyaaradda ilaa ay gacantiisa ka dhigto. miyaaraddiina waxay ku dhowaatay in ay jabto. run ahaantii aniga iyo hooyadii aad ayaan u naxnay. anigana waxaan ka baqay in uuna dilo aniga iyo hooyadii ninkan. waxaan daaqadda ka arkay naagtii oo dukaanka joogtay iyadoo moobeel ku hadlayso. isla markiina waxaan u qaatay in ay iyada booliiska wacooso. laakiin ninkan booliis iyo waxyaabahaas shaqo kuma lahayn. aad ayuuna u caraysnaa.
kadib aniga waxaan go'aansaday in aan meesha ka tago intuusan miyaaradda igu soo jebin, waana ka soo cararay. waxaan u maleynayay in uu iga haray ninka aan meeshiina uga soo tagay, laakiin asiga arrinkaas ma yeelin, wuu isoo daba kacay. gaarigiisa ayuuna soo qaatay, aniga ayuuna isoo bursaday. aniga waxaan u maleynayay inuu iga haray marka hore. xoogaa kadib waxaan arkay gadaasheeda markaan fiiriyey asigoo baabuurkiisa xoog u soo wado, gadaashiina soo socda. markii hore ninka markuu dood noola jiray keligiis ayaa baabuurka ka soo degtay, laakiin markaan waxay ahaayeen 2 qof, asiga iyo nin kale ayaa gaariga kaxinayay. marka horena asiga ayaa gaariga kaxinayay. hooyaday waxa uu sheegay dadkan inay tuuga yihiin, aabbana uu u waco si oo dadkan nooga badbaadiyo. hooyaday si degdeg ah waxay ku wacday aabbahay, waxaana u sheegtay in ayna bursanayaan dad tuuga ah. waxay kaloo aabbahay u sheegtay in aan anaga guriga imaan karin, dadkaana aan ka baxsan karin. si degdeg ah in oo noogu imaada ayay u sheegtay. gaari kale ayaa guriga yaalay, aabbahay gaarigaas ayuu soo watay, si degdeg ayuuna ku soo baxay. laakiin nasiib xumo, markii aan anaga soo baxnay ayaa naagtii booliiska u imaadeen, laakiin naagtii waxay ku dhahday meesha ayay ka baxeen. meesha aan ka baxna ayayna usoo tilmaamtay booliiskana nama soo dabagalin, waxay u maleeyeen naagtaas in ay beenteed tahay. aniga waxaan ku fikiray inta aan ka carari karo ninka inaan ka cararo ilaa aabbahay aan ugu tago. xoogaa kadib waxaan arkay baabuur iga soo horbaxayo, isla markiina waxaan ogaaday baabuurkaas inuu yahay baabuurka aabbahay. run ahaantii aniga aad ayaan u farxay. isbiidka baabuurka aan ku wadana waan qaboojiyey. baabuurka isbiidkiisa markaan qaboojiyey, sidoo kale asagana baabuurka isbiidkiisa wuu qaboojiyey. ma aqaan sida uu aniga xaragaadkayga ula socday. kadib aniga baabuurka waa istaajiyey, aabbahay ayaana horteyda soo istaagay, asagana sidoo kale baabuurka ayuu istaajiyey. baabuurka ayuuna ka soo degay asigoo aad u caraysan. sidoo kale ninkii la saarnay baabuurka asagana wuu soo degay, laakiin aabbahay ayaa bistoolo hore usoo qaatay. bistooladii ayuuna soo baxsaday aabbahay. ninkii ayuuna ku taagay, wuxuu dhahay dib u laabo, haddii kale waan ku dilayaa. aabbahay xoogaa ayuu hore u soo socday, wuxuuna ku dhahay ninkii gacmaha kor u taag. run ahaantii ninkii markuu bistoolada arkay, wejigiisa cabsi ayaa soo gashay, gacmaha ayuuna kor u taagay. kadib aabbahay wuxuu ku dhahay kuma dilayo haddaad baxdo, laakiin haddaad bixi weyso waan ku dilayaa. kadib ninkii aniga ayuu isoo fiiriyey, wuxuuna igu dhahay nasiibka ayaa kaa batay adiga, maanta waad dhiman lahayd. kadib ninkii wuu cararay, wuxuuna koray baabuurkiisa, asiga iyo ninkii kale la socday, meeshana way ka tageen. kadib aabbahay wuxuu igu dhahay xilligan oo kale bannaanka iskugu soo bixin. okay ayaan ku dhahay, mar dambena ma soo baxayo. run ahaantii cabsidii iyo hiise waa iga kala yaraatay. kadibna aniga iyo aabbahay waa issoo raacnay, waxaana imaanay guriga. fadlan ha hilmaamin in aad videoga like gareyso, channelkana subscribe saar. 내가 포기하고 싶을 때도 나는 왜 기억